caaisha radia allahu canha baa waxay tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan aayad qur'aana tafsiirkeeda weydiinayaa bay leedahay. waxay tidhi waaladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilah annahum ilaa rabbihim raajicuun. ilaahay rasuulkiisiiyow, kuwa ilaahay leeyay waaladiina yu'tuuna maa aatow, kuwa la imanaya amase bixinaya waxay bixinayaan iyadoo waquluubuhum wajilah, iyagoo cabsanayo, qalbigoodu cabsanayo. kuwa wax sameeya haddana cabsidu ku jirtaa bay leedahay ilaahay rasuulkiisiiyow. ahum aladiina yashrabuuna alkhamr wayasriquun, waa kuwa khamriga cababah ee tuugadana sameeya ee waxoogaa camal wanaagsanna samsamayn ma kuwaasaa? nebigu wuxuu ku yidhi may, laa ya binta sidiiq, ina abibakaray maya, walakinahum aladiina yasuumuun wayusalluun wayatasaddaquun wahum yakhaafuuna anlaa yuqbala minhum ulaa'ika aladiina yusaaricuuna fi lkhayraat. waa kuwa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam soomaya, ee salaad tukanaya, ee sadaqa la imanaya, ee rabbi ka cabsanaya, ee haddana ka cabsi qaba acmaasha in laga aqbali waayo. su-aashu markaa waxay tahay, camalka maxaa lagu aqbalaa? markaynu maxay samayno ayuu camalkeennu maqbuul yahay? goorma camalka la aqbalaa? ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa nebi ambiyada ka mid oo ilaahay baryayoo leh waan acmala saalixan tardaahu. ilaahu waxaan kaa baryayaa inaan camal suuban sameeyo, laakiin bishard, camalkaas suubanoo midaad raalli ka tahay ah, midaad aqbalaysa ah buu leeyahy. ayuha alaxiba, sixada iyo qubuulka waxba u dhexeeya. camalku inuu asaxay iyo in la aqbalay waa kala laba. camalku inuu asaxaa wuxuu ku xidhan yahay wixii shuruudiisii iyo waajibaadkiisi iyo wixii uu lahaa ee caamka ayaanu naqaanay fiqigu ka warrami jiray inuu wato. yacni qofka camalka sameeyey inuu mu'min yahay, kow. ka labaad, inuu shareecadii waafaqsan yahay. oo maalan salaad baad tukatay, salaadbu shuruudeedii inay yeelato, inaad tahaaro qabto, inaad weysadaadii qabto, inaad qiblada u jeedo, wixii ay ku asixi jirtay hay-aadkeedii iyo arkaanteedii iyo waajibaadkeedii inaad la timaado. kaasi wuxuu keensadaa qubuul, wuxuu keensadaa baan u jeedaa sixa, inay asaxday. amaa in lagaa aqbalaa wax dheeraada bay u baahantay. waayo acmaashu qubuulkeedu kow sixada wuu ku xidhan yahaa, sixa daahira inay de sharciga waafaqsantay kow way tay, laakiin waxay kaloo u baahan tahay waxa qalbigaaga ku jira ikhlaas iyo iimaaniinta u leegyahay, iyo inaanay jirin mawaanic ama wax ishortaagaya oo kaloo aad samaysay. mithaal, nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo mawaanicda khaarijiga, waxyaabaha camalkaaga diidaya in la aqbalo isagoo ka warramay, wuxuu leeyahay midkiin mid baa gacmaha kor u taaga isagoo leh yaa rabbi yaa rabbi, rabbigayow isagoo leh, laakiin waa ma goortuu gacmaha taagayaa isagoo buu nebigu yidhi wama'kaluhu xaraamun wamalbasuhu xaraamun wagudiya bilxaraami, isagoo wuxuu soo cunayaa xaaraan tahay, wuxuu huwan yahay ay xaaraan tahay, wuxuu ku soo qadeeyay ay xaaraan tahay, faannaa yustajaabu lahu buu nebigu yidhi, oo kaasee wax looga aqbalaya. oo macnuhu muxuu tilmaamayaa? masalan salaadda in la aqbalay iyo inaan la aqbalin maxaa u dhexeeya? salaaddu inay asaxday iyo inaanay asixin maxaa u dhexeeya? kow, salaaddu haddii arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo waajibaadkeedii waxay lahayd lala yimaado sidii fiqigu qorayey, mu'minna a tahay, waa asaxda min xayث asixa. haddii waxaa wax ka dhiman yihiin ma asixin, oo ruknaad ka tagtay ama meelaan qiblada ahayn baad u jeesatay ama wixii ay ku asixi jirtay wax ka midaad daloolisay, ma asixin. laakiin su'aal labaad bayna imanaysa markaa,
ma la aqbalay mise lama aqbalin markaynu idhaahno macnaheedu waxa weeyaan ajar ma ka helaysaa mise ka heli maysid ajar ma ka helaysaa mise ka heli maysid oo xaggee wax iska dhaafsiisan yihin nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dad saf ku wada jira oo salaad tukaday oo dabeetana salaadoodii aanay sinnayn mid baa laga aqbalaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cushruha salaadda cushurku waa 1/10 waa 1/10 ama waa 10%. mid baa laga aqbalaa 10%. marka waa tukatay salaaddiina way asaxday laakiin ajarka waxaad leedahay markay ajarka timaado 10% baad leedahay oo waa maxay waad tukanaysay laakiin maantao dhan waad isu sheekaynaysay suuqaad maraysay oo waxbaad dilaalaysay oo cid kalead ka warramaysay oo waxaa laga yaabaa intaad soo jeeday inaanay in badan ba ahayn intaad ila salaada waxaa loogu talagalay inaad ilaahay la hadasho weynayso qofka mu'minka ahi ilaahay buu hor taagan yahay dabeetana rabbuu la hadlayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaad aniga toos ila hadlaysaana waa kuu jawaabaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaad tidhaahdo xamidanii cabdii baan odhanayaaba rabbi leey addoonkaybaa ii mahadnaqay ima hadiyey alraxmaan alraxiim markaad tidhaahdo athnaa calaya cabdii baan odhanaya addoonkaygiibaa i ammaanay maaliki yowmiddiin markaad tidhaahdo majadanii cabdi addoonkaygiibaa i weynay ilahay wuu kula hadlaya laakiin haddaanad ogeynba inaad faatixada akhriday iyo inaad akhrin alxamdulilah rabbi alamiin laakiin xisaabtaadaad iska wadatay imaamku markuu assalaamu calaykum yidhi unbaad baraarugto adna assalaamu calaykum tidhi nin shaydaan la yidhaahdo oo khatar ah oo u gaara salaadaha inaga shaqeeya iminka haddaad cunno cunayso wax kale ma ka fekertaa mise cunnadunbaad hamtaa ku haysaa fekeri maysid haddaad tv-ga daawanaysa wax kale ka fekeri maysid waa iska daawanaysaa waxa uu sheegaya unbaad arkaysaa hadduu qof kula hadlaya wax kale ka fekeri maysid salaadda markaad u kacdo unbaad dunida lasoo ururinaya markaad waxa kale qabanayso shaygaa camalka aad hayso unbaad ka fekeraysaa shaqo kale markaad hayso o dhan haddaad imtixaan ku jirto isagaad ka fekeri haddaad shaqaysanayso shaqadunbaad ka fekeri waxaad qabanaysa kalead ka fekeri mar allaale markaad salaadda isu taagto ayuunbaa qolo kale imanaysa una markaasuunbaa adduunka lagugu soo ururinaya idan saa daraaddeed nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam mid baa tukado salaaddiisa 10% leh mid baa le baa layidhi tusuc aha tusuc waa 1/9 waa xawaalay lestan 13% meelahaasuu noqonaya mid baa le thumunkeed baa layidhi 1/8 1/8 mid baa le ilaa iyamu nebigu soo gaadhsiiyey nisf mid baa leh 50% salaaddiis idan salaadda waynu ku jiraa oo safka waa wada taagannahay cinda allaahi se waxa la qorayaa isku noociyaad maaha salaaddiina way asaxdo shuruudeedii waynu samaynay laakiin markay ilaahay agtiisa joogto isku nooc noqon mayso marka waxaa laga yaabaa nin 20 sano tukanayey mid sanad tukanayo saadiq ahaa inuu kaaba ajar badan yihi sanadkiisu sanad midida oo uu soo jeedo rabbi uu caabudayay idan anugu weligay baan soo waday kan yari muxuu sheegaya weligaa qof ha yaraysanin muslima garan maysid cidda laga aqbalay garan maysid